السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم الحكيم، والحمد لله رب العالمين. walaalaha ku xiran channelkeena waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Ilaahay ha idin siyaadiyo inta xanuunsanna Rabbi ha inoo caafiyo. haddii uu Ilaahay ka raali noqdo muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa saddex ka mid ah dadka Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u duceeyay ee uu Ilaahay naxariista uga baryay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadiisa waa aqbal. Isku day in saddexdan qolo meel aad ka soo gasho. wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam, jannada Ilaahay waxaa lagu galaa naxariistiisa. mana jiro qof naga mid ah oo camal uu asaga shaqaystay ku geli doono. waxay saxaabadii weydiiyeen, rasuul Allah, miyaad adiga ku galaynin camalka faraha badan ee aad samayso? wuxuuna ku yiri, haa, kuma geli doono camalkayga ee waxaan ku geli karaa Ilaahay oo ii naxariista. qofka ugu horeeyana wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idha baa'a wa idha ishtara wa idha iqtada. Ilaahay ha u naxariisto midka dadka marka uu wax ka gadaayo u dabacsan ee u naxariisto, marka uu asaga wax soo gadanayana dadka u dabacsan ee haddana u naxariisto, marka uu deyn bixinayana dadka u naxariisto oo asagoo dabacsan oo furfuran deynta bixiyo, marka uu hadhow deynta waqtigeedii la gaaro uu qofka ka qaadanayana u naxariista ee u dabacsan. dadka qaar markaad sheegan meeqaad gadaan ku dhahdo waxay ku sheegayaan in ka sarreys intii gadi jireen. haddii qofkaasi uu suuqa la soconin waxaa laga yaabaa inuu sidaas ku qaato. sidoo kale waxaa jira kuwo gorgorta badan oo shay $10 jooga say kuu riixayaan $6 ama $7 aad ka siinayso. mana fiicna dadka iyagoo lacagtii haysto gorgortanka badan ee sidaas u dhaqmo. sidoo kale qofka markay deyn la weydiisto dadka qaar baa jiro hadal badan oo deynta hadhow amaad bixin weydaa, waxaan anigaba dad baan ka soo qaaday, waxaan wax sidaan iyo sidaana. qofkii oo wax weydiisanaya ee deynta u baahnaa wadnuhu jaraya sida asagoo deeq siinayo. waxaan waa deyn, qofkan waa wax laga rabo. waa in aad adigoo naxariisanayo oo daruuftiisa dareensan aad siisaa una duceysaa inuu Ilaahay u fududeeyo soo celinteeda. haddii la gaaro waqtigii lagu ballamay in deynta la soo celiyo qofkiina uusan waxba keenin, waa inaad wajiga u bedelin oo aad ku qaylanin. waqtiga ugu dar oo dareen in qofka deymaysan uu adiga kaa kurba badan yahay. lambarka labaad dadka uu Nabiga sallallahu alayhi wasallam u duceeyay Ilaahay naxariista u weydiiyay waa nimanka timaha xiira cumrada iyo xajka. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri, Ilaahay ha u naxariisto kuwa tintooda xiiro maalmahaas. waxayna saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam weydiiyeen, nabiyow ka waran kuwa jara? kuwa waxaa jira aan xiirin ee jara ee tinta sisimo. wuxuu yiri Nabiga sallallahu alayhi wasallam, Ilaahay ha u naxariisto kuwa tintooda xiira. waa markii labaad. haddana way weydiiyeen waxay ku dhaheen, nabiyow ka waran sallallahu alayhi wasallam kuwa tinta aan xiirin ee jaro? nabiga sallallahu alayhi wasallam haddana wuxuu yiri, Ilaahay ha u naxariisto kuwa timahooda xiiro. waa 3 jeer. markii afraad ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku dhaheen, nabiyow kuwa xiiro garanaya kuwa jarana noo sheeg. wuxuuna yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam, ayagana Allah ha u naxariisto. 3 jeer wuxuu Ilaahay naxariis u weydiiyay kuwa tintooda xiiro cumrada iyo xajka, hal marna kuwa timaha jara ee aan xiirin. waxaan rajeynayaa inay fahanteen. lambarka saddexaad dadka ugu dambeeya ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu Ilaahay naxariista uga baryay waa nin u soo kacay qiyaamul layl oo tukaday kadibna toosiyay xaaskiisii oo markii uu kari waayay wajiga biyo uga firdhiyay, iyo gabar u soo kacday taajud tukatay kadibna toosisay ninkeedii markay kari weydayna wajiga biyo uga firdhisay. waa ku mahadsantihiin waqtigiina. muuqaalkan intaas ayuu ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.